hal maalin oo kaliya ayaa u hartay waqtiga loo qabtay lacag $15,000 ayaana lagu xujeeyay wiilkooda oo 18 sano jir ah uu haysto magafe xaalad aan la qiyaasi karin ayaa gurigan iga dambaysa ka jirta oo waxaan rabaa inaan idin dulgeeyo waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan share gareysaan oo aad meel fog gaarsiisaan kana qayb qaadataan samata bixinta wiilka da'yarka ah Soomaaliyeed maanta garabkaaga u baahan kaliya waxaad u awoodid lambarka iyo akoonka aan soo saari doono shaashada ayaad ugu diri doontaa oo doorkaaga ayaad ka qaadan kartaa kaba soo qaad in adiga ay ku haysato dhibaatadan ina keen dhibta iyo xaaladda ka jirta gurigan si aan idin dulgeeyo si maalinlaah ayay muuqaal toosa kaga soo wacan kooxdan arxanka daran ee magafayaasha ee haysta Cadnaan Cali Xuseen aabaha dhalay Cadnaan Cali Xuseen Cali Afweyne waxa uu sheegayaa in mararka qaarkood ay duruufta baddo in gabi ahaan baqadka uu iska xiro uusan eegan karin dhibaatada adag ee wiilkiisa uu wajahayo waxna uusan u qaban karin uu yahay qof naafa ah oo ku sugan hoygiisa waxa uu sheegay in dhibaato ka soo gaartay mid ka mid ah gaadiidka ay isticmaalaan ciidamada dawladda federaalka kaas oo ku jiray qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho anigoo dhibkayga iska sii qabo sariirjiibska ilmeyga dayacmeen xaaladii bari dhaxtahay ayaa wiil ani aan dhalay wax ka bartay Kenya iskoolka dhiganay form 4 ayaa la tashkiiliyay nagafa loo gacan geliyay bishii afraad ayaa u dhalatay maalinka soo wacayaan daqiiqad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray in daatada taleefankayga aan damiyo hadii aan daar hore ay soo wacayaan anigoon awoodin in aan dabiro xaaladda oo sheegay markaayada ayagoo garaacayo weliga ooynahay سمر إن شاء الله دولاد ما الله صاب بحنتنا إذن الله العقود الأولى في مركز سنة $10,000 قبتين مدة فرمالنا ولا يقول جودين هذانا كبير من العقد وقت قاس إن صدقكم ركض جايان حتى كوربس مركا والله ما قام حاسميه دوست كم مركا مسلمين تا محسنين تا لما أنت دنقنيس وضمير دنقنيس أنا ومسلم وإيمان له أنا معناها أود ما وارد واحد لي قصوا قال إنه كي من يجيب كيس ويا هاي كان لا يسته إنه يقول ماذا عق عن عدو جيجا بحيل كي إن شاء الله أنت تقول عشان ما مسلمين تا قرن قسمة دوار بدأ حوينا قرن رئيس الوزراء برايم مينستر رئيس الوزراء قدام برلمان دق مجال مقدسه دمان انت امضنا محسنين تا او اسلام ka oo iimaan oo danqasho macnaha bini aadanimo leh waxa ka codsanaya in canugaas gacanta cadawga ku jiro inay iga soo badbaadaan wax badbaadiyaan iga soo badbaadiyaan oo ay la qaataan xanuunka aan dareemayo inay la dareemaan waxa maanta baxsid Brit maalinta ay ku baxsanaysaa insha Allah taala Rawda Xuseen Cali eedada Cadnaan Cali Xuseen waxa ay sheegaysaa in qoyskan ay wajahayaan khatar aad u weyn halisna ugu jiro aabaha qoyskan in diig la'aan ay ku dhacdo magafa wiil anaga 3 bilood oo haysta qaraaca saaki wuxuu soo dhigay shalay wuxuu soo dhigay asagoo leefa feera intuu ka banay madaxana ka xiray uu soo dhigay qadka soo dhigay maalin kasta adoogo sida noo ilmi yar oo rajo haysta san rajo ilmi yar oo rajo haysta asoo rajadiisu xamaalanaya tiknika bakaaro ku disho wuxuu sameyn kara malaha waa cad waa iska fadhiya waa kan meel ma aadi kara saaka $1 taleefankiisu kuma jiro saaka intaan ka tagay waxaana isbahaysiga naday masaajidka weyn isbahaysiga $1 ka soo masaajidka weyn isbahaysiga saaka $1 wax ku siinay malaha muslimada waa dhamaatay islaamnimada waa dhamaatay inta muslim waxaan ku xusanaynaa inay wiilkaad magafa nooga soo deeyaan 3 bilood oo naga haystaa isagoo waxbarasho ku jira ilma naga tashkiiliyeen magafa haysta muslimiintan waxaan ku xusanaynaa inay nagu caawiyaan islaamnimada Soomaali islaamnimada nagu caawiyaan kulli adduunyada walaal lagu yahay qarwaa lagu ma aha inta Ilaahay wax u dhiibay waxa nagu caawiyaan magafa nooga soo deeyaan cadow magafa cadow waa magafa waxa magafa lama dhaw xal laf dhun gashay
laf dhunkasha laf dhunkasha ma kaa baxda laf dhunkasha kaama baxayso waa laf dhunkasha kolley inuu calfanayo lama aha lacagtaada loo dan kolley ma gafa ma calfanayo ma gafa wax ma dhalin waxna ma dhalin waxna kama nahayo manaxa waay manaxa kolley insha allah awooduu maanta sheeganaya ilaahay ka weyn awooduu maanta sheeganaya ma gafa tii ilaahay ka weyn